halkani waa run about-ka ugu weyn magaalada Nairobi Globe Cinema la yiraahdaa waad arkaysaan baabuurtu aad bay u yartahay dhaqdhaqaaqii dadkana maba jiro ayaa la oran karaa magaaladu maanta way degan tahay ilaa iyo hadda ogaalkeena wax dhib lama soo sheegin inkastoo meelaha qaar cabsi laga qabo balse dareen baa taagan oo shacabkii magaaladan ka shaqaysan jiray hadday ganacsato ahaan lahaayeen ayaa haddii dad xafiisyada u soo shaqo tagay ahaan lahaayeenba maanta gebi ahaanba magaalada way ka istaageen ranabaadka baan idinku wareejinayaa Globe Cinema ee bartamaha magaalada ku yaalay si aan idin muujiyo oo u ogaataan xaaladdu siday tahay dhibka ma jiro dadku ma socdaan qof baad arkaysaa dhulkan oo dhan mashquul buu ahaan jiray maalmaha caadiga ah dadku waxa ay ka cabsi qabaan waa inuu dhib soo gaaro inkastoo badana meelaha mudaharaadyada ay ka dhacaan aysan halkan ahayn haddana dadku waa dareen u joog qof baad arkaysaa laba qof bartamihii magaalada ayaan hadda sii galayaa ranaboodkii waan ka soo dhammaaday Globe Cinema waxaan jeclahay inaan idin geeyo wadooyinka ugu caansan uguna mashquulka badnaa magaalada Nairobi oo maanta haawanaya jidkan aan hadda muuqaal ahaanta u arkaysaan gaadiidka dadweynaha PL-ka iyo gaadiidka sida gaarka loo leeyahayba aad bay u isticmaali jireen haddana waad arkaysaa 2 3 4 gaari baad arkaysaa baabuurtii PL-ka ma jiro warkooda waxaan ku dhacayaa bartamihii magaalada gaaraan meelaha ay Soomaalida u badan tahay ama u badneedba markii ay Nairobi ahayd caadiga oo kaasa wadadan waa wadadii masaajidka weyn ee Jaamiya Mosque galaysay Berti Jifinji Garden waatana waad arkaysaan halkan waa goobihii bicmushtarka ugu waaweynaa dukaamadii ganacsiga oo dhan way xiran yihiin sida idin muuqda bangiyadiina iyagana way xiran yihiin marka aan idinku soo wareejinayaa wadadan kala ilaa Koinange Street la soo wareegayaa waad arkaysaan qof yaa socda aan ka istaago ninkan xamuul buu wadaa alaab culus buu wadaa dukaamadii way xiran yihiin inkastoo dhowr bangi aan arkayo furan wadadan waa wadadii ugu mashquulka badneed askar baan halkaa ku arkayaa oo burar wata waa dhib ma jiro laakiin way iska diyaar garoobayaan mootooyinkii dadka qaadaya boodada u muuqata waa ka askarta hadda idinku qabto burar bay wataan tiya gas baana garbaha ugu suran oo ujeedaan laakiin buuq kama taagno hadda halkan wadadan waxay ka mid tahay wadooyinku ugu dhaqdhaqaaqa badnaa waad arkaysaan NYS baa la yiraahdaa waa guuloodayaashii wadanka iyagana burar wata masjidkii Jaamiya Mosque ka ee mashquulka badnaa waan la soo wareegayaa marka ilaa iyo Koinange Street yaan aadayaa waad arkaysaan 2 askari oo NYS askarta loo yaqaano burar bay wataan dukaanka waa furan yahay la soo wareegay waxaan rabaa inaan idin geeyo wadadii Koinange Street oo iyadana ka mid ahayd wadooyinka ugu mashquulka badnaa suuqii City Market-ka waa kana ee hilibka iyo beec mushtarka kaleba oo ka jiray illa weeyaan oo taa arkaysaa Nairobi bartankii baan hadda taagnaa marka wadnihii magaaladan taagnaay hadda wadadii Koinange Street ee caanka ahayd gurigii Chester House wakaasa aad u jeedaan marka mashquul ma jiro traffic jam ma jiro Koinange Street wataasa aan halkaa ku qabto waxaan aadaynaa marka Uhuru Highway yaan ku dhacaynaa haddii Ilaahay yiraahdo meelaha ugu mashquulka badnaa gurigii dheeraa ee Parkless waa cidlo parking-kii hataa waa cidlo u jeedaan wax gaari ah oo parking yaalo ma lahan Absa Towers ama gurigii Parkless Bank Towers loo oran jiray waa kaasa u jeedaan waa cidlo meeshan waa meeshii parking-ka ahaan jirtay haddana la ooday hotelkii hore Grand Regents ee xirmay yaa isna halkaa ah marka wadadii caanka ahayd ee Mombasa Highway aan hadda ku dhaceynaa ee Korna Expressway-ga uu ka marayay marka ganacsi ma jiro beec mushtar ma jiro dhaqdhaqaaq kale ma leh xafiisyo furan ma lahan Mombasa Highway wataa waa haawanaysa aad moodo in lagu kala guuray Mombasa Highway aan hadda ku soo dhacay marka ilaa waxaan idin geynayaa Haile Selassie Road
ماله هو عن سنة قريق يايا هوسوكا دولة أي حفيسة بدن كل هاد وعلّة قانا باديدي ugu mashquulka badnaa wad u jeedaan kala wareegi waa kaas waa iska cillo iska dhex soconaysaa Mombasa highway-an hayaa weli laba gaari oo xamuulan arkaa oo ku carrada iyo dhagxaanta qaada wata xaafadii ama wadadii ay eberka tahay aqalkii baarlamaanka ayaa halkan ku qabsan inkastoo inta badan dhib ka dhicin dhulkan ay dawladdu degan tahay halkaas compound-kii aqalkii baarlamaanka beertii Uhuru Garden wata laamiyeriga lagu wareejiyay wadadan waxay ka mid ahayd wadada ugu mashquulka badan dhowrka saacadood lagu jiri jiray waa cillo waan la wareegayaa marka qaybihii dawladdan aadaya ay dawladdu deganeed in la wareegi doonaa Mombasa Road way sii soconaysaa halkaas sii aadaysaa compound-kii ama xayndaabkii aqalka baarlamaanka la soo wareegay gurigan waa guriga ay xubnaha baarlamaanka xafiisyada ku leeyihiin